waxaa magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Togdheer lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu wareejinayay gaadiid ay dowlad goboleedka Waqooyi Bari Soomaaliya ugu talagashay xoojinta iyo amniga horumarinta adeegga bulshada u hayaan hay'adaha amniga ee gobolka. wasiirka amniga dowlad goboleedka Waqooyi Bari Mudane Cabdirasaaq Faarax Warsame ayaa si rasmi ah gaadiidkan ugu wareejiyay taliyaha ciidamada booliska dowlad goboleedka Waqooyi Bari Soomaaliya gaashaanle sare Siciid Xasan Faarax. gaadiidkan ayaa qayb ka ah dadaalada ay dowlad goboleedku ku xoojinayo howlaha sugidda amniga iyo ka hortagga dambiyada, waxaana munaasabada ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Waqooyi Bari, saraakiisha kala duwan ee ciidamada dowlad goboleedka Waqooyi Bari ee gobolka Togdheer, oqaal waxgarad ururada haweenka iyo waliba sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan iyo waxgaradka degmada Buuhoodle ee gobolka Togdheer ee dowlad goboleedka Waqooyi Bari Soomaaliya. waxaana ugu horeyntii halka ka hadlay wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Waqooyi Bari Soomaaliya oo ku wareejiyay gaadiidkan taliyaha guud ee ciidamada booliska dowlad goboleedka Waqooyi Bari Soomaaliya. waxaan rabaa taliya inaan kugu wareejiyo 6 gaari furayaashoodii 6 gaari ee maanta ay dowladda Waqooyi Bari Soomaaliya ku wareejinayso taliyaha 6 gaari waxa la rabaa inay igala wareejiyo. waxaan rabaa halka inaan ku wareejiyo gaadiid dhan 6 gaari. waxaan rabnaa 2 gaari oo hore oo dayactir u baahan ee shaqaynaya halka joogana inaan shaqo ku bilowno oo boolisku leeyahay ee laga soo shaqeeyo. 6 gaari birmadku boolisku ka mid yahay waa waxay wadaagaan. 6 gaari waxaan rabnaa inaan ku wareejino taliyaha booliska si ay ugu howlgalaan ciidanka gobolka. gaadiidka dawladda markii la yiraahdo boolisku wuxuu yahay buddiga gacantu ku hayaa mas'uuliyadiisa isaga leh, laakiin marka la yiraahdo shaqo la qabanayaa waxa la wixii amniga ba laga shaqeyn karaa. waxaan rabnaa mas'uuliyadda in la iska saaro. Togdheer wixii ka jirana waxaan u keenay ciidanka in shaqo laga qabto. hawsheeda way ku filan yihiin maanta intaas oo gaari oo sufajanta oo cusub way ku filan yihiin, ciidanka noo joogana waa ku filan yahay. waxaan rabnaa baahiyo kale aan isweydiino, laakiin baahiyo xagga gaadiidka ma filayo inay maanta la oran karo waa laga hadli karaa. waxaan rabaa taliya inaan kugu wareejiyo 6 gaari furayaashoodii 6 gaari ee maanta ay dowladda Waqooyi Bari Soomaaliya ku wareejinayso taliyaha 6 gaari waxa la rabaa inay igala wareejiyo. mudane wasiir waa kala wareegnay waxaana ballan qaadaynaa gaadiidka sifooyinkii anagu aanu gaadiidka noogu yaalay waxa ila socda hogaankii gaadiidka sifooyinkii aanu marin jirnay hogaanka gaadiidka marin doona. waxaanu marinaa anagu oo shuruucda noo yaala booliska waxa weeye gaadiidka darawalka kaxaynaya maaha darawal intii la soo qabto looranaya kaxay sifooyin buu leeyahay shuruuc aanu marin doono. waxaana marin doona hogaanka gaadiidka ila socda. aniguna hadda waxaan ku wareejin doonaa gaadiidka nagu wareejisay wasiir oo aanu xafidi doono ummadana uga adeegi doono hor ilaahay iyo daacadnimana aanu ugu daalo. gaadiidka dawladda iyo ka shaqsiga loo leeyahay waa kala gaar isku mid ma waxa mas'uuliyadiisu ay weyn tahay gaadiidka ummadda loogu shaqeeyo dadweynaha ka dhaxeeya. gaadiidkana nagu wareejisay dadweynuhu ka dhaxeeya qof kasta oo umadeed oo reer Waqooyi Bari baa wax ku leh waana ugu adeeganaa waana ugu shaqeyn doonaa. waxaan hadda ku wareejin doonaa taliyihii qaybta iyo hogaankii gaadiidka ila taagan taliye qayb maamulka Waqooyi Bari igala wareeg gaadiidka waad haysataa maanta. waxaan rabaa mas'uuliyadda aynu qaadnay adiguna inaad iga sii qaado la sii wareegto gaadiidkaasna dayactirkiisa iyo baahidiisa dawladda qaadayso maamulka qaaday. Raxmaan Raxiim waan u mahad celinayaa waan aqbalay waana kala wareegay taliyaha ciidanka booliska gaadiidkaas oo 6 gaari ah 5 gaari oo cusub iyo gaari la dayactiray waa kala wareegnay isagana uu maartay dawladdu ku wareejisay isaguna uu soo gaarsiiyay hadaan nahay qaybta booliska gobolka Togdheer waana kala wareegay furayaashooda in gacantan ku haya aad iyo aad baan ugu mahadsan waana xafideynaa ummadana waa ugu shaqeynaynaa in badan ma ciidanku gaadlaan ku shaqeynayay waana sida ugu hagaagsan baan u xafideynaa oo gacanta dawladda ugu ilaalinaa oo u ballan qaadeen ammaanadana loo dhibay
iyadoo dayac tiran bana lagu imaanayaa waana haynaynaa mas'uuliyaddeena waa ka soo baxna shaqadii dadka lagu talagalayna gobolka oo dhanna daraf ilaa daraf waa kaga shaqaynaynaa waa ugu shaqaynaa gaari kasta halkaa taagan wuxuu tegi doonaa degmo kasta iyo magaalo kasta gobolka ka mid ah wixii adeeg iyo shaqo looga baahdo ka soo qaban doonaa maxamed cali bile warbaahinta qaranka Soomaaliya Buuhoodle.